runtii oo ku faraxsanahay inaan maanta high level meeting aan ugu imaado baarlamaanka markii igu koowaad ma ahan oo sharcigan runtii wuxuu soo bilaabmay 2018 sharcigan markuu soo bilaabanayay waxa marjic ka dhiganay oo ka horeeyay inta sharciga la qorin la draft gareynin in culimada la iskugu keenay Kismaayo dhamaanteeda farqadeeda kala duwan ay ka munaashaqoodeen FGM ka muxuu yahay gudniinka maxaa la dhihi karaa ay ka soo saareen fatwadii la soo saaray 2018 ayaa hadda u noqotay gumdig sharciganiyada in la qoro halkaas uu ka soo askumay 2018 markii la qoray ilaa iyo maanta intaas ay waxa lagu jiray in bulshadii marbo qof la tashto bulshadii in marbo ma taqaanay qof aan dhigi karno maanta saameyn ku lahan doona fulintii haday noqoto iyo markii hore wal qoraayaba wuxuu ka geysan karaa wax maxalli jiray fikrad uu ugu kordhin karaa la kulmeynay qaybaha qosaysa bulshada dhamaanteedaba waxa ognahay in dhowr jeer waxyaalo FGM kan ka soo laabtay magaca haday noqoto si loo dhigaayo qaybta ay noqoto ay ka soo noqdeen waxyaalo fara badan baarlamaanka naftirkiisa waxaan rajaynayaa inuu dhowr jeer waxyaalo comment inoo soo celiyay intina waa la tixgelinayay hadda sharci markii la sameeynayo baarlamaanka ayaga ma taqaana u madax banaan laakiin anagana waxa leenahay inaan wixii bulshada aan u maleeyno inay fikrad aan ku aragno oo fiican oo saliima inaan la qaybsano adahno saani bulshada codsanaysa sharcigan runtii waxa waayay sababaha aad u arkaysaan inaan inta badan ay hay'ado ku lifaaqan yihiin hadda hay'adaha anaga ka codsanay sababaha uga codsanayna waxay ahayd in at least dad waxaan mas'uuliyiin baa isku keenaynay dadkii in transportkooda markay ugu yar tahay inaan bal meel loo saaro wax kale oo ku lifaaqan ma jirto sharcigan wuxuu ka yimaaday bulshada reer Jubbaland waxaana lagu dhaqi doonaa bulshada reer Jubbaland waxaan ayaga aanan dan ugu jirina ma rabno anaga ka wasaaradda ahaan inay la beelmariyo wax ma taqaanay qalaadna kuma jiro waxaan maanta idinkugu imaano idinka inaan inala fiirino wixii su'aalaha haday jiraan ka qabtaan idinkaga jawaabno ama saadee meel u baahan tahay sharcigan ku qoran faahfaahin dheeri ah maanta idinku taaganahay waxay tahay inaad bal fiirisaan sharcigan wax alaal waxa u maleysaan oo ka soo horjeedo dastuuradeena sorry idul qaadadan waararka isku qalqaldo waxa sharci yaqaan yaa la qaban insha Allah soo xeerka hadii oo ma taqaanay uu ku jiro wax qalad ah wali waa open u noo yahay inaad ka soo qabataan aad nala wadaagtaan wixii bedelna iskala bedelno taas markii laga soo wareegana waxaan ka codsanahay xildhibaanada halkan fadhiyo iyo kuwa kale oo naga maqan ba inay naga gaarsiisaan codsi ah wasaaradda in sharcigan sida ugu dhaqsiyaha badan aad noogu fududeysaan oo noo ansixisaan in badan buu soo socday wax u soo socdayna waxa waay runtii sensitivity-ga ku jirto waxa waay gudniinka markii la leeyahay waa dhib badan yahay waxa ognahay inuu dhibaato fara badan ku haayo runtii bulshadeena haddana saasay tahay diinteena na faraysa gudniinkeena faraysa diinteena kama cararsanin laakiin waxaan diidayna waxay tahay wax kasta oo dhibaato u geenayo qablaheena iyo gabdhaheena yar yar soo waxaan ka codsanaynaa idinkana inaan nala qaadan doontaan oo sharcigan aan nala ansixin doontaan si ay badbaado ugu noqoto runtii gabdhaha yar yar oo maanta soo kacayo iyo kuwa waaweyn hataa waxa ognahay in meelaha qaar qurbaha inta laga keeno gabdho waaweyn هاي وما صدقي waxaan rajaynaynaa marka codsigaas maanta waa idinka codsanaynaa inaad noo fududeyn doontaan insha Allah waxaan rajaynayaa wax kasta aad u maleysaan inuu halkan ka qaldan yahayna inaad si saxan aad noogu soo gudbin doontaan aan isla fiirin doono aan wixii dib u eegis u baahan aan dib u eegi doono aad iyo aad u mahadsan